murtida maanta dhayma haamo jiilaal lagu dhaansadaa. dhaymo hawraartan waxa ay ku tahay basaasbi'in haanta la basaasbi'iyo marka ay biyaha suyuucinayso, waxaana loogu leexiyey dhaymada haamaha jiilaalka sida badan marka la joogo xilli roobeed oo ay tahay gu ama dayr. dadku biyaha waxa uu ka dhacaa meelaha u dhow, balliyada ayuu ka waraabaa, aroorna uma dhibaatoodo. jiilaalkase waxaa la og yahay in lagu soo baxo biyo la dhaansado iyo aroor meel fog loo arooro. haddana waxaa kaloo jira inaan kashi loo hayn qabyo in la qabsado ama haamo la tolo marka la joogo jiilaalka ee ay hawshu badan tahay, ee loo aroorahayo meel fog ama daaqa xoolaha loo raadinahayo dhulal durugsan, dadkoo dhanna wada hawshoon yahay ee uu dhibaato ku jiro. marka sidaa ay tahana waxaa lagu jiilaal bixi karaa haamahaagii hore inaad dhayato oo ayaga aad ku biyo doonato ilaayoo laga gaaro waqti roob ah ee dadku wada ladan yahay. markaa la samayn karo haamaha oo ay dumarku qabsan karaan qabyadooda, lana toli karo wixii loo baahan yahay oo mow ah. murtideennu waxa ay na tusaysaa sida dadka Soomaalida ahi ay uga walwali jireen marka ay tahay waqtiga dhibka ah in la isku dayo waxaagii hore in la dhaqaalaysto, ee aan wax kaleeto loo hanqal taagin ee aan la heli karin. waxaa kaloo haddana murtideennu na tusaysaa mar haddii aynu ka mid nahay dawladaha soo korahaya, waxa aynu ognahay inay iska kaaya dhimahayaan waxyaalo badan oo lagama maarmaan u ah ee hawlaha lagu fuliyo. waxaa ka mid ah alaabta lagu shaqeeyo, ay ka mid yihiin biraha, baabuurta, kuwa warshadaha, alaabta kaleeto xafiisyada looga shaqeeyo. intaasoo idil marka haddii aanu nahay dawlad soo koraysa, nooma suurtoobi karto inaanu maalin walba wax cusub la nimaadno oo shaygii iska kaaya dhimaba aanu gacanta ku dhigno. waxa markaa mahmaahduna leedahay waa inaan wixii hore ee aynu lehayn hagaagsanaa oo aanu dhayannaa. biraha waa in ayaga la xooleeyaa sida haamaha loo xooleeyo oo kale. dhayma haamo jiilaal lagu dhaansadaa.